qaadnay tarmuuskaas marka aad furto waxaad gudaha kaga shubaysaa shaahi tarmuuska gudaha shaah kaga shubaysaa okay gudaha tarmuuskan u galeynaa tarmuuskii waa ka walal waad furtay marka aad kala dhigto xagga waxa u yaala ningax waa cinjir halkana waxa u yaala salki cinjirkaasi wuxuu qabtaa salku qabanaya cinjirkaas salkaas uu qabanaya okay cinjirkaas salka uu qabanaya waa maxay inuu salka ka soo taakeeyo marka dhulka la dhigayo tarmuuska xagga inoo dhig halkan dadku waxay u yaqaanaan qaar irbad oo waxay yiraahdaan hadduu ka jabo irbadaasi tarmuusku waa qaboojinaya macnaheedu waxa weeye irbadani iyadu kuleel siin mayso laakiin tarmuuska gudihiisa markii la shubayay tarmuuska waa dhaladan waa la shubisay iyadu biyo ah baa la shubaya waxan markii la shubiyo dhalaha loo shubiyay ayaa meeshii laga xirayay ugu dambeysay ayay noqotay irbadkan ilaahay ha nooga dambi dhaafo tarmuuskan hadda waxaan u soo qaadanay inaanu jabino si aan dad badan maskaxdooda uga dhaadhicino khaladka lagu shubay walaal halkan kiniiniga laga sheegay ku jira halkan waxa ku jira kiniiniga la sheegayo waa koow halkanna waxa ku jira kiniinka la sheegayo waa labo halkanna waxa ku jira kiniinka la sheegayo waa saddex saddexdan dhinac waa xagal saddexdan dhinac ee xagasha ahi dhinacan waa saddex xagal dhinacan wuxuu celinayaa tarmuuskan gudaha ah waa dhalo kana waa dhalo waa laba dhalo is saaran labadan dhalo cufkooda inaysan isku dhicin ilaa kan kaliya wax lagu shubo salku ka dhacaya kan iyo kan waxay celinayaan waa suuf yar oo inta la eg oo kaniini u eg waxay kala celinayaan tarmuuska inuu san isku iman bay kala celinayaan dhaladan hadda markii aynu test gareyno aynu jabino waxaan sameyn doonaa hadii la yiraahdo inaanu dhaladan jabino ilaahay ha nooga dambi dhaafo inuu gabadh lihin israaf ilaahay xaqi waxaan ka wadiisanaynaa dambi dhaaf dhaladan waxaan u qasaarin doonaa tarmuuska qiimaha jooga inaan bulshada la waalay ka dhaadhicino inaan samahayn bismillaah hatta isku sharqan maaha meesha markaan garaaco sida u sharqami eeg xagga markaan garaacana eeg isku sawd maaha waxa sababaya suuf baa ku jira meesha labada dhala dhaxdoodu kala haya markaad ku garaacdo oo ka halkana eeg okay tarmuuski hadda tirir baa galay waa u jabi doonaa insha Allah ilaahay ha inooga dambi dhaafo inaga dhan hadda waxaan jibinaynaa waa dhaladii hore ila fiiriyo ilaahay tan wasan igama gaarsiiyo walow isku xiran yihiin dhala kale xagga ka aragtaa xagga waxaad ka aragtaan dhala kale si fiican ila socdo way kala hadhay hadda bismillaah way kala hadhay waka dabadii wata waa aragtaan dhala kala sii hadhay dhala kala sii hadhay dhaladii kale waa ka okay la dhaladii kala sii waday waa ka dhow suufkiina kiniinkiina liisheegay waka dhaladan kala hayay labadan dhalo kala hayay xaggana labadan dhalo kala hayay si fiican u eega waka kiniinkii waa hooyo walba kiniinkaas ay qaaday suufkaas ay qaaday waxay tiri waa kiniin yani sheegta kiniiniga u sameysay adduunka kiniiniga capsule baa laga dhigaa saasa loo sameeyaa waa weyn baa laga dhigaa laakiin Soomaalida maadaama ay arkeen hadii la kooyo kiniiniga dhaqankiisa inuu safar kale waa kiniin buuy waa u gudgeli doonaa xagga inoo dhig waxaan ka fujinay xagga wuxuu u dhaxeeyay kan iyo kan labada dhalo kala hayay baadka okay ka gudub waxaan isku dayi doonaa inaan caadi uga dhex saarno annoona labadii hoose jibin si u qanacdaan laba dhalo is saaran waxaan leeyahay bismillaah waxaan ka rogay jaad labadan bismillaah waxaad aragtaan kiniinkii kale waa kana saddex kiniin lagu sheegay waxay ka hayeen saddex dhaadheeg labadan dhalo sax ugu dhacay sarqamaya bay kala hayeen hadda marka aan geliyo beeri labadan dhalo
sharqami mayaan